أنا السؤال مقابل سؤالي هو أنت أصلا نقول من بعض ملايين كليه واحد يسدح النقطة وأن قبلنا نخرج وزارها والشيء تلاهم برا إن نحكي كجديد وكسر سنة الجليدة واي اللي بالجليدة ومهم صدق أي ضد وشيء واي اللي بحبي اللي ضد كيلو هو قريب كم ده هني مستويات يعني كل جريمة في وزارة عن مركز هو كل جزء جلاي هي عندهم هذا سليش مركز اللي بالجليدة ومهم أنت عن قبلنا كان واحد حق اللي بالجليدة مركز هذا نيسي واحد له بقى information أي كاشين وأنا بالجليدة هنا دور شيء أي كاشين وركاز نوع إن هذا شامل الجيسي وأدمارتي وركاز كشي دين كرتين وين هذا هي أذاها نبت سويدا هي هذه اللي بدهم بباريس يرجع المارتي ورك لو جينها ذلك آد بيوقع منها رئيس الوزراء وحي لين الباب دي بيحرتين الباب كمركي تجان ذلك يجوا information بوها وحي أورانيا بالله الملاذ هذيك مايا بتكون نقطة حفيز كان كل سعودة واحد دوني هنا وركو سيو وأن ملاحظ الله هذلو مايا ديبو نقطة هذا بالله هاي ذلك ماشى اللي علينا قفكي وركو وذا أو ربعين information كسية يدب له علم أرنتاس واحد ما أكتي بسوا جيدنا يا إن أدبل نمت جريد قابل سن مركز نشر يسار وشيفتا طلب الكلام دولي وحوي إن نشر وحوي إذا مدينا حوق الدولة الصومالية يو وحي نوطة ببلد الأجنبية حوق جعلي إذا مدينا ذكين كوف الله أو معلمين تاني كوف الليل أو العقل قصين لها أو يسوي دوين لها dad ajnabi ayaa maamula taaliyaab ma laha hog jacday hal baro gaardiga hal soo baro gaardiga wax ugu ma hooseen askarteena uniformkii baa loo geliyay gaardiga waa la soo baray ninkii marka waxa ka maqan maadooyin fara badan oo uu ku hanan lahaa ummadda wax u tari lahaa kow waxa ka maqan wadannimadi inaad wadanka ku bees gareysid ninka aad bartid sida wadanka maartay uu yahay sida wadannimada ay tahay waxa uu u dhimanayo waxay tahay inaad bartid waa qodobka kale in shuruucda dalka u degsan inaad bartid oo aad tiraahdo sharciga waa kaas lagu dhaqmaa waa inaad barto marka saddexaad waxa weey discipline wax la yiraahdo jira ciidamada ay leeyihiin discipline ciidamada ay lahaayeen in la baro way waa askariga haddaad xogja intaad soo bartid kaakiga aad u gelisid wali askari maaha ma kala garanayo idda maartay waajibaadka maartay isagu fulinayo u qabanayo iyo intaan u qabanayn ma kala garanayo marka waa taas horta taas way ta kale waxa way ta saddexaad waxa way dawladdu way shirtaa guddiga nabadgelyada gaar ahaan habeen walba idaacadaha waxa laga sii daaya wixii go'aan halka ku gaartaan marka mar haddii aad idaacadda ka sheegaysaan oo aad faafinaysaan oo isbileedii aad siinaysaan maxaa gooni ahaan u shiraysaan ma meel publica ku qabsataan oo baarlamaanka keentaan oo aad tiraahdo waxaan rabnaa inaan maanta nabadgelyada ka shirno ma tirahdaan si ay dadkana ra'yidin siiyaan mar haddaad meel ka gasheen waa in wixii secret ay ahaadaan wey sir dawladda waa inay ahaadaan wey waana mahadsantihi aad mahadsan tahay adinkoo iga hadlay waxaan ra'iisul wasaaraha inuu casir u tukado u baahan yahay 10 daqiiqo bareegaan qaadanaynaa haddii aan leedno waa soo noqonaynaa laakiin waxaan soo jeedin lahaa aniga su'aalaha inaad fadlan hal su'aal oo kooban nooga dhigtaan si dad badan aan uga gaarnay adinkoo mahadsan gabdhaha waxaan rabaa fadlan gabadha gadaal fadhida aamino iyo fartuun iyo baarliin iyo bakiin afartaas inaan israacraaciyo laakiin hal su'aal ka badan iyo kama badan doono insha allah waqtiga dartiisa ولكن استعصدا هل سؤال ويدي آمنة كبلاوية بدال فديد سؤال شيء واحد وسعته سؤال شهر أصلي سببت عن وحلنا هنا وحوي وحنا دريمين إن المساحة يصير عن هذا وجهه سؤال شيء ويدي سوي هيد سؤال قصير 51% of our population مركب وقصوا علينا يا كونتن يعفر ووسير إن أفر كلية يدمر نقدان محي كل عذي culture لما بلين قرين كرو culture لما الوضع ملحة مسعته decision لما قارته مركو حندنا نسلنا هاي culture كسبجكت يولي إن عذيقة هاي we don't know what happened behind scenes لكن وحن كالله يا وحا عذيقة سميسي تابك لإقرأ النقو 50 نمر إلا دونتو it trickle down شقالها وسهرد والبجوجو وحيو بدينهن محل لهايو نمن it will also trickle down to economic justice and economic marginalization مركا معها يعني culture لو كلية اللي هو بحين كرو
soo maadaama 2 sano ay ku dhiman tahay oo wixii dhacay hadda ay dhaceen plankaada waa maxay Mr. Ra'iisul Wasaare Ra'iisul Wasaare aniga su'aasheedu waxay ku saleysan tahay amniga xiliyadan dambe waxaa la dilayay xildhibaano hadda ay ceenta 5 u dhahay xildhibaanada la dilay waa 7 xildhibaan xildhibaanada la dilay xafiiskaaga iyo xafiiska Ra'iisul Wasaaraha waxaa laga hayaa 2 eray oo cambaareen hay-adaha amnigana waxaa laga hayaa hal hadal oo waan ku daba jirnaa xukuumaddaadana kolay hadda shacabka Soomaaliyeed waxay u bixiyaan xukuumadii aas qaran marka Ra'iisul Wasaare waxa waaye hay-adaha amniga haddaysan lahayn ka hortag ay wixii dhaceen maxay u yeelan waayeen dabagal inay investigation wixii wax sameeyay kolay ay soo raadiyaan inta aad cambaareen lahayd kan qoriga wato hay-adaha amniga maxaa u cambaarey weyseen adii madaxweynaha oo ku mahadsantahay su'aashaydu waxay tahay waa hal waxa laga hadlay amniga waxa horta xildhibaanada waa la dilay dhowr xabo laakiin xildhibaanadu waxay gaareen go'aan ay leeyihiin qof walba xildhibaana 2 askari ha loo qoro $200 ha la siiyo xildhibaanadu ma ka hadleen askartii frontka joogtay marka laga hadlaayo mid guri ku xareysan haddaan kaas waxba la siin see ku shaqeynaysaa in amnigii la helo cabdirashiid ayaan rabaa in loo dhiibo microfonka oo su-aalihii social mediada uu 3 raaciyo kadibna Ra'iisul Wasaaraha fursad siino kadibna waxaan usoo noqon doonaa dadkii kale insha Allah Ra'iisul Wasaare su'aasha koowaad waxaa weeye dalka waxaa ka taagan ama kasoo garaamana abaaro maxaad kahortaga oo aad samayseen ayuu soo weydiiyey qof oo Twitter soo diray su'aal kale waxay leedahay maxay tahay priority-ga labaad marka laga soo haro amniga maxaa number 2 ku ah as priority su'aal kale waxay leedahay dowladda culture-ka ama suugaanta iyo arrimaha suugaanta maxay uga faa'iideysan weydiisay amniga iyo nabadgelyada iyo dowladdiska oo qeyb qaadato ama maxaa talaabo ka qaadeen kuwa badan oo content xabaa jira laakiin saxan soo hormarnay aad iyo aad baa mahadsantahay Ra'iisul Wasaare بسم الله الرحمن الرحيم أمينة والاستجاهر ما يكتري أرنتي قبلها وحقيقة وهي وكنسان لولا السنة صوتها أي بعني هذه كت الشنو ورتوحان ربينا كوشيغو كل إذا قفك يقولوا ستاف من بركة يقولوا وقو باورفul سام وقبر وهي marka xafiiskayga aad bay gabdhuhu u yihiin tii hore wayna dhaaftay aamina aynu xoog isu wada geyno si aynu arrintaas wax uga bedelo waan soo laweynayaa inaad talooyinkaadana siiso oo aanu iswada bishgarayna arrintaasna runtii waa arrin mudan aniguna aan aad iyo aad uga fikri doono marka waxay ila tahay inaan wixii hore هذا لو حين واحد صوص إنه كيف كره لكن وأنا أقول هاي وحبي كور هاي السايو أمريكي وكشغين جرتي وحي هذا الشيء دبقل يو محل قفتي حقيقة واحد بدن بالقفتي حاجة أمريكا وحنا دي شيء يا قار بدنو اللي بنادي اللي دليه دتكي دليه ولا السوق mid ka mid ah saaka la toogtay ninkii dilay oo Cabdulcaziz xildhibaan Cabdulcaziz dilay kuwa kalena runtii waa la soo qabtay waa maxkamad sugayaal weeye oo wal xaqiijinaya rajana waan ka qabnaa sida ay sheegeen saraakiisha kulliga ayaga ayaa mas'uuliyadaas leh in raadad lagu daba taagaya aad baa looga shaqeynayaa xanuun badan bayna leedahay dabagalku waa socdaa koortagna waaba yimid oo waxaan u maleynayaa warbixintii ugu dambeysay golaha amniga la hor keenay ilaa iyo 20 iyo dhowr isku day ayaa la fashiliyay suuqii la soo dhaafay oo qaar ka mid ah baabuur qarax wada la qabtay oo maxkamadda la soo taagi doono waxaan u maleynayaa in faahfaahin buuxa aad ka maqli doontaan wasiirka amniga iyo hay-adaha hoos yimaada ee arrintaas ku saabsan xalayto kowdii iyo barkii waxaan ka qayb galay bandhig hub aad u fara badan oo hub waaweyn ah oo la soo qabtay
oo markaa dagaalna lagu galay hubkaas in la qabto kullayba sheekada iyo tafaasiisha hubkaas waa wax noo dhiman oo weli laga shaqeynayo laakiin markii aan arkay runtii aad iyo aad baan la yaabay hubka tiradiisa waxaa ka mid ahaa tuutayaal waxaa ka mid ahaa bahalada la yiraahdo bazuukaha oo tank lagula diriro oo badan waxaa ka mid ahaa bahalka dabajeexa la yiraahdo ama BKM waxaa ka mid ahaa shilke waxaa ka mid ahaa rasaas fowq alcaqli ah waxaa ka mid ahaa balada gumuca oo beryahan waa duulaan oo baabuurta ku dhacaan lalahaa waxaa ka mid ahaa qoryaha yaryarka waxaa ka mid ahaa bastoolado aadna u badan marka waxaan u malaynayaa TV-ga inaad ka fiirsan doontaan caawito marka hawl aad u fara badan baa ka socota cambaareynta isbedel baan ba samaynayba marka isbedelkaas waxaan u malaynayaa inuu tusaale u yahay waxa aynu ka qabanay waxaan ku celinayaa mas-uuliyadda amniga waa midna wada saaran abroachka shacabka iyaga iyo innagoo dhan aan amniga u arkayno waxbaa ka khaldan inta waxaas ka khaldan yahayna cadow waa naga faa'iidaysanaya amniga koox yaroo askar ah oo resource-koodu yar yahay iyo xukuumadda keliya xil kama saara haddii aan nidhaahno amniga keliga yaa ku aada ama ku filanna been baan idin sheegnay amnigu waa wax shacabkoo dhan saaran shacabkan wuxuu kala saaran yahay siday u kala aqoon badan yihiin oo u kala waacisan yihiin shacabka wuu ka warhayaa amniga wuu baqayaa baqdinta waa inay ka soo baxaan lianna dibicadde iyo dibimadoob iyo dibiguduudna maalin walba qolaa leeyahay qoladaasaa loo jeedaya idinka laydinma jeeda iska aamusa oo na eegta oo na waxaya waxaan idinka rabaa laba arrimood fadhigan waxyaabaad noo soo jeediseen waan qaadanaa waxaan rabnaa inaan waxaan idiin soo jeedinana aad nala aragtaan midda koobaad waxaan rabnaa inaan isguubaabino oon istaageero oo aan ciidamada iyada taageero waa mas-uuliyad qaran oo na saaran dal kastoo adduunka ciidamadooda waa ixtiraamaan waa taakuleeyaan innaga ciidamadanada yaana caayin ayagoo soo jeedaya waxbaan idin tusaaleynayaa baarlamaanka markii la soo weeraray ilaah baa idinku dhaashay kabtan gurxan naftiisuu u dhigay baabuurkii qaraxa oo waday asagoo ciidamada amniga commitmentkooda ka tarjumaya si baabuurkaas uusan ugu gudbin baarlamaanka uusan ugu gudbin wuu kala gogo'a iska tegi kara commitmentka ciidamadii meesha joogay oo 8 ka mid ah ay dhinteen aadna garanaysaan lacagta ay qaataan waxay ahayd inay u diideen in nimankii hubaysnaa oo aadka u tababaraayo aadka u hubaysnaa ay galaan meeshaas oo xildhibaanada ay wax yeelaan tiraka 3 weeye inta la soo weeraray baarlamaanka oo ay joojiyeen qof ammaanaya ma aanan arag hadda hadalladiina aad iyo aad bay xanuun u leedahay in la ammaano weeye ficilada noocaas oo kale adduunkana waa ammaana aqoon-yahanadii baa tihiin mas-uuliyiintii baa tihiin waxaa runtii la filayaa inaynu feer u ahaano ciidamadeenna iyo dadkeenna dhimanaya inaynu feer u ahaano cadaaladdu halkaasi ka bilaabanaysa cadaaladdu kuma jirto waxna noogu hagaagi maayaan in aanu xumaanta keliya aanu sheegno waa inaanu samaanta sheegnaa habeen aanay dhimanayn ciidamadayada habeen aan ribood liisoo gudbin geesiyaal wey ummadaha kalaa sheega wallaahi ummadaha kalaa sheega dalalka deriska ha sheega dalalka adduunka ha sheega sida ciidamaduna ay geesi u yihiin oo ay u waxaynayaan resource waa ka maqan yahay waa institutions dhismaya awood ma laha laakiin commitmentkooda kuwa aan hadda halkan ku fadhino waa midda aan ku soconayno haddii marka jaqaf yar meel laga gaarsiiyaa meel laga gaarsiiyaa inaan niraahdo ciidamo ma jiraan security ma jiro amni ma jiro waa cadaalad darro waa very unfair waxaan idinka baryayaa walaalayaal mas-uuliyad taariikhi ah idin saaran shacabka Soomaaliyeed mas-uuliyad taariikhi ah saaran dadka aqoonta leh mas-uuliyad taariikhi ah saaran waa inaan u helinaa ciidamadana dadkaas naftooda horayo waa inaan u helinaa waa inaan amaanaa waa inaan taageeraa
lacag ma siino waxaan malaynayaa qof adinkeeda ka mid ah waa yaryahay waa dhici karta inuu jiro inta jeebkiisa gacanta geliyey yiri tabarucaanan ciidamada ugu tabaruca ma jirto dalalka xoogga badan oo lacagta leh markii dagaal ay galaan ama wax ay dhacaan dadkoodu wax walba ururiya markaasuu calamo qaataa markaasuu taageera fiiriya markii Mareykanka la soo weeraray waxa dadka Mareykanka u sameeyay fiiriya meelaha Yurub iyo markii la soo weeraray waxa ay sameeyaan shacabka waxa weeyaan response-ka dadkeena waxa weeyaan cadaalad ma aha cadaaladaas hal fiiriyo dambe noo tahay ciidamadu markay xoogoobaan oo ay wax qabtaan nabadgelyadana waa fiicnaanaysaa marka arintaas si xamaasad leh aan uga jawaabayaa laana waxaan oga dhibka ay ku jiraan iyo naftigoodnimada ay sameynayaan waxaan rabaa inaad u hiilisaan inaad arintaa ka jawaabtaan fartuun aad bay u mahadsantahay waa run weeye in laga fikiro weeye kuwa frontiga jira aad baan uga mahadcelinayaa waxa weeye waa dareen aad u wanaagsan waxa weeyaan qaar baa bakool frontiga taagan qaar baa gedo frontiga taagan qaar baa beledweyne iyo bulabud frontiga taagan qaar baa Kismaayo frontiga taagan waxa weeyaan waxaasoo dhan waxay ilaalinayaan in ciidamadaas al-shabaab intay isa soo abaabulaan ayagoo xoog badan ay magaalooyinka dib u qabsadaan xamarna ay yimaadaan sidii ay yeeli jireen in xamar ay ka maqan yihiin oo ay ku soo gurteen oo inay qof masaajid maraya iyo qof ay gaadaan bal qof masaajid marayo aan hubaysnayn fulaynimadaas waa fulaynimo weeye waxaa keenay ciidamada ayaa keenay in loo hiliyo sida hadda fartuun u sheegtay in ciidamada frontka la ogaado waa mahadsantahay arrintaasna waa ka qaadanay aad baadna u mahadsantahay baarliin cadani ciidanka Afrika ka imaanayo cuduradiisa nusug diyaarad baa la celiyaa lagu yiri shala baarliin oo ay celiyeen ciidanka airportka jooga oo ka timid Sierra Leone ciidan Sierra Leone ka yimid marka waa international system in haddii ay wax dalka jiraan dalka kale uu kawsha ka qaato arrintaasna si xoojinayna waan mahadsantahay in dadka naga aanu difaacno ka difaacno in cudurro ay u yimaadaan abaaraha waa meel kale oo aan helin kaga baahannahay abaartu waa wax dabiici ah oo ilaahay xaggiisa ka timaada markuu ilaahay roobka keeno waa qadar ilaahay gobollo badan oo dalkeena gobollo dhowr ah oo koonfurta u badan iyo bartamaha Soomaaliya ayaa waxaanu ka helaynaa macluumaad ah in cunno yari xoogan ay ka jirto adduunka abaaraha waa ka dhacan laakiin laba waxyaabood buu wax kaga qabtaa preparedness oo marka hore inay diyaar u yihiin oo raashin meel loo sii dhigay oo gaadiidkii qaadi lahaa meel loo sii dhigay oo lala socdo early warning system inuu jiro haddana preparedness jirto haddana responsiveness oo markiiba laga jawaabayo oo markii ay dhacdaba intervention ku dhacayo waad arkaysaan awooddaas ma jirto laakiin karaankaya waxaanu magacaanay guddi heer sare oo shacabka iyo adduunka iyo innaga dowlad ahaanba coordinate garaya sida looga jawaabi lahaa abaarahaas oo uu hogaaminayo wasiirka beeraha oo aad iyo aad shirar muhiim ah u qabtay xogtiina u hubiyey waxaanu xiriir la sameynay beesha caalamka oo dhan kuwa muslimka iyo kuwa kaleba in ay gurmadkii diyaariyaan qaybo ka mid ah cunnana waa noo timid qaybo kalena waanu sugaynaa dowladdu waxay miisaaniyadeeda ka goysay lacag $1 milyan ah awoodda dowladdu aad bay u yartay waana la kordhin doonaa oo gurmadka degdega ee biyo dhaaminta meelaha biyuhu ay yar yihiin loogu talagalay waxaan rabaa inaan munaasabadan kaga faa'iidaysto arrintaas waa mas-uuliyad qaran anagoo dhan oo taalla inaan dadkeena baahan u gurmano adduunkuna waa nagu qiimeynayaa sida aanu isugu naxariisano sida aanu isugu gurmano sida aanu u wada socono markii xaaladahan oo kale yimaadaan adduunku waa nagu qiimeynaya waxaan rabaa shirkan dadka jooga aan ogahay wax ku oolinay yihiin in ay nagu garab galaan arrintaas oo cod dheer
iyo gacan waxay ka dhiibi karaan iyo ciddii kale oo ay kaashan karaanba ay nala qabtaan waxaana lala xiriiri karaa guddiga wasiirada ee gurmadka abaaraha oo uu hogaaminayo wasiirka beeraha cinwaankoodana waxaan rabaa xafiiska iyo qoladayga la joogta in ay cinwaankeeda in soo sheegaan wixii meesha aad kala xiriiri kartaan waxaan rajaynaynaa inaanu account furo degdega oo marka qof kastoo Soomaaliga oo ku shubi karo qofkii in kind kaalma loor bura bariisa ayadana xataa waa laga qabanayaa wax kasta oo aad ku kaalmeyn kartaan dadkaas meelaha ugu ba'an waa Bakool Hiiraan Gedo meelo bay kamida meelahaas ugu ba'an oo xaaladaha degdega ah laga soo sheegaya in macluush ay ka jirto kansan waxa ku haram priority second priority horta amnigu waa priority number 1 amnigu waa priority 2 amnigu waa mudnaanta saddexaad laakiin haddii aan wax ku darayno dawlad dhisidda ayaa priority kala ah sababta waxa weeyaan amniga waxa burburiyay waa markay dawladdu naga burburtay marka dawladda ayaa hooyo u ah amniga dawladda ayaa hooyo u ah dhaqaalaha dawladda ayaa haddaan dawlad jirin dhaqaale ma jirayo haddaan dawlad jirin marka dawlad dhismaha institutionska siyaasadeed iyo kuwa kale dhisidooda ayaa priority noo ah waana waxa aan runtii hadda ka shaqeynayno shaqo badan laga qabto culture iyo suugaanta daawa faa'iideysan culture arrintii aan idin sheegay ee wasiirka tacliinta sare iyo hiddaha uu hogaaminayo ayaa ah symposium ballaaran waxaana ka soo qayb galaya dad scholars oo caan ku ah dhaqanka Soomaaliyeed waxa ka mid ah marka arrimaha political culture-ka iyo culture-ka sidoo qayb uga qaadan karo dib u dhiska Soomaaliya xagga amniga iyo siyaasadda iyo wax oo dhan marka waxaad arki doontaan suugaanley waaweyn baan isku keeni doonaa oo qaar ka mid ah ajnabi yihiin ayada laftigeeda fundraising baan u baahanahay dawladdu contribution bay bixinaysaa adinka ku baaqaya arrintaasna waxaan ka rabnaa inaad jeefka gacanta gelisaan waxoogaa yaraad ku dartaan si dadkaas soo keeno waan idinku soo dhaweynayaa wasiirka tacliinta sare inaad la xiriirto qolooyinka social media aad baan u jeclaanahay inuu soo dhaweeyo aad baan mahadsantahay waxaan ra'iisul wasaare waxaan haysanaa waxaan ka badnay 15 daqiiqo ra'iisul wasaaraha closing statement uu leeyahay si aan intaas oo dhan uga faa'iideysano 19 magac halkan ay ugu qoran yihiin waxaan soo jeedin lahaa inaan idin siiyo hal daqiiqo waa badan tahay qofkiiba aan 20 second meelahaas iyo su-aasha aan weydiisaan waa idin soo socdaa waa idin wada qorantiin then aan marka ra'iisul wasaaraha kusoo noqono jawaabta uu bixiyo kadibna uu jawaabo marka waxaan ka bilaabayaa Yariso أنا إيش شيء رئيس الوزراء ديالك كلمة علنا فرصة غالية الشعب فينا لو ذاته وأنا بلو في accountability عن خيالك مدة اللي إحنا بنقول مخبرين باقي بسومي أو كم تهاي بدي هو ساديو أو بلو وزير السمايستو إن تكي قرحي لولا بيرسلي ما مدحتوي أما أتاكي إن سبدل حق أمني قال السماي إن تكي مالية أو تاوتي وعيقلته وفاقلته dib u habeynta dhanka garsoorka oo iyadana wax badan aan ka qabsoomay iyo guddigii dib u heshiisiinta dastuurka waxa kaliya waxay tahay bacdama labadii sano bisha soo socoto la gaaray oo midterm uu yahay soo ma habboona in mandate-ka dowladda la siiyo review lagu sameeyo wixii la qaban karo 2016 oo dhanka international ay aad idinku bushgaraynayaan in dib u eegista dastuurka federaalki democratization process inay election dhacdo ay aad u wadaan dhanka shacabkana ay doonayaan amni xasiliin iyo adeegyo bulsho soo ma aha marka in mandate review lagu sameeyo midtermka si dadka iyo caalamka loogu sheego wax rasmiga 2016 suuragal ka noqon kara dowladdii si aysan hadhow ugu faylgaroobin mandate-kii ka sugayay السلام عليكم عبد القادر سلام كسبك ولو دلين يو ولول حقا نظام فدرالي كسر جيديان هذا وحاوي مع الصومالي هذا وحد مدة لبا نظام فدرالي هو بلاري دوك ولول بسيبي حقوق دقنقا Soomaaliya dagaal sukay gashay qabiil ku dhisan qabyaaladii baa aad loo aaminsan yahay
waxaa kolka dad badan ay rabaan dowlad goboleedyo qabiil ku dhisan oo la leeyahay reer hebel baa meeshaan leh, reer hebel baa meeshaan leh, reer hebel baa meeshaan leh, loo badan yahay hadda sida tawjiiha uu yahay. taasna anigu waxaan aaminsanahay inay national identity iyo national unity-ga khatar u tahay balkanization iyo waxaas iyo keeni karta. kolka waxaan soo jeedinayaa kolka arrintaas in laga digtoonaado oo dadka lagu baraarujiyo in arrimahaas xataa anti-constitutional ay noqon karaan. maxaa yeelay constitutionka xuquuqda wuxuu siinayaa si citizenka soomaaliga ahna waddanka lagama laha meel kastuu degan yahay waxaa ku leeyahay. sharcigaa la baasgareeyey, baarlamaanka baasgareeyey intii dowladdii adiga ka horreysay ay joogtay, sanction garaynhaya in maxaa la yidhaahdaa ninaan u dhalan gobol ama wixii taas waa anti-constitutional. kolka arrimahaas intii loogu noqdo oo long term la fiiriyo intii lagu noqon lahaa polarized arrinta civil warka laga dhaxlo qabiilka ah soo ma habboon. anigu su-aal ma qabo, laba talo yaryar baan rabaa inaan sheego. midda hore sidaad sheegtay waxa weeyaan dowlad dhisidda marka lasoo ururiyo laba qaybood oo waaweyn bay leedahay. midi waxa weeyaan capacity-ga institutionada dowladda in la dhiso, midina waxa weeyaan public relationka in la hagaajiyo. taladaydu marka waxay tahay si institutionada dowladda capacity-gooda loo dhiso waa in jagooyinka loo tartamo. 4.5-kan aad adiga iyo madaxweynaha iyo speaker buluuq inta la gashaan aad soo daynaydaan ka daaya ee wixii ha loo tartamo waa iga talo. talada kalena waxay tahay public space inaad bixidaan. مثلا meelaha public space-ka laga bixin karo waxaa ka mid ah guddigan hadda abaaraha oo kaleeto golihii wasiirada kaliya lagu soo koobay. dowladduna adeega ay bixidaayo waa farqutiris amnigaa ugu weyn. dadkii adeegaasi ku jiray talada in wax laga siiyo. matalan maalinood waxaan joogay oo adiguna mudan ra'iisul wasaare joogto waxay ahayd jaamacaddii ummaddaa la dhisayey golihii wasiirada ayaa bool u noqday. public space-ka awo dadkii wax bartay oo wax yaqiinay oo Soomaaliyeed oo kicin lahaa institutionkaas. marka aniga taladaydu waxa waaye public space-ka bixiya institutionadana dad wax yaqaana u tartamaanay ogolaad. weydiiyo salaamaya wax badan culays badan haysto waa dareemi karaa. su-aasha kaliya rabo xitaa aniga Soomaalida 23 sane waxay ku baahday dunida adduunka dunida dacaladeeda kala duwan ku baahday. xukuumadda ka horeeyay ra'iisul wasaare waxay sameyn jireen Soomaalida meel kasta ay joogaanna way tagi jireen intooda badan. yes waxba qabanin laakiin way tagi jireen. wasaaradda arrimaha dibadda oo adiga xukuumaddaada ka mid ah waxay albaabada u soo laabtay ugu yaraan 30 safaaradood oo adduunka ah oo intooda badanna Soomaalida ay ku nool yihiin. marka Soomaalida ku nool deegaanadaasi ama wadamadaasi ma la isdhihi karaa dhibaatooyin fara badan yaa ku dhici kara haddii safaaradahoodii la soo xiray. waxba yeysan information badan yaa la helin laakiin la rabid xogaha way ka rooneed sidii meel aamusan iyo meel safaarad joogto way kala wanaagsanaayen. ururka gargaarka bini'aadanimada iyo horumarinta tacliinta oo aan German ka ahay waxaan kaloo ka tirsanahay Department of IT oo xafiiska ra'iisul wasaare environmental sector xafiiska ra'iisul waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aalo badan oo weydiiyo wasaaraha. waan ku faraxsanahay qaabka uu ra'iisul wasaaraha noo qancinayo inaan ku farxo. waxaa u dambeysay qaabkii gumaada lahayd oo ciidankeenu uu yiri oo sida qiirada lahayd uu ugu tilmaamo kolley ninkii dareen lagu dareemi karaa qaabka uu ra'iisul wasaare u hadlay. waan ku faraxsan waan kaaga mahadcelinayaa damiirka ugu jiro Soomaalinimada. ra'iisul wasaare waxaan baryahan iyo maamulka soo dhaafay aad ugu mashquulsanahay
aan maskaxdeeda kasoo bixi weysay oo aan aad inta badan u raadin website-ka raadiyey meel kasta ka raadiyey oo adigana ay kaa horreysay arrintaan filayo inay adigana kaa horreysay laakiin aad awareness u tahay hadda xaaladda iyo meesha ay marayso arrinta badda Soomaaliya waxaan rabaa inaan wax iiga faahfaahisid arrinta badda Soomaaliya ma baddi baa naga weynaatay oo ma qayb baa la rabaa in la iska dhiibo ma idan ma dastuurkii ka mid tahay in la qiimeeyo ma la rabaa waa fahmi lahay qaar badda u socda ciidamada qalabka sida maalin maalmaha ka mid ah waxay ahayd qaraxii hadaltaan dhawaa oo sayidka agtiisa ka dhacay 2 askari baa ku dhimatay ninkii dowladda u hadlayo oo meesha ka hadlayo wuxuu yidhi raggii qaraxa rabay inay sameeyaan way fashilmeen 2 askari keliya ku dhimatay xildhibaan kuma dhiman marka su-aasheedu waxay tahay xildhibaanka ma ka muhiimsan yahay askariga qalabka sita oo maalin kasta aniga iyo adiga iyo qof kastoo meeshaan joogo amnigiisa sugayo marka waxaa waaye in aan ka fiirsana haddii ay jirtaan in aan xaqooda haddaan rabno inaan dhowrno si fiican aan u dhowrno oo sida loogu sameynayo aas qaran qof kasta oo xildhibaan ah iyo qof kasta oo wasiir ah in ayakana loogu sameeyo waa mahadsantahay aad iyo aad baa mahadsantahay ra-iisul wasaare ugu badina raallina بسم الله الرحمن الرحيم وكل يريسو أبو جماعة سنة فلوين كيسة وضحنا في عنه أنا أخبرنا سوجي اليوم مركب وقت من البلدي وسوجي لي ومهم ريفيو بس من بيت كدولة وأنا بلوني وأنا وضنا وأنا صار جماعة بيالله نبدو ولا شقين يعني عبد القادر عبد الله waxaan rabay arintaas inaan ku yar kabo mid aan rabay inaan khulaasada ama summary walaalayaal federalismka yanaan aad uga baqan federalism waxaan isleeyahay siyaabaha aan ku burburin karo qabiilka nidaamkan gobolada waxaan idin sheegayaa experience life oo anigu hadda u joogo markii aynu south west sameynay markii hore south west waxay ahayd wax xoogaa qabiilna u ka dhaqanay laakiin annagu waxaan ku dadaalnay wax la yiraahdo all inclusiveness waxaan shardi ka dhignay constituencies-ka degan oo dhan waan ku qoray agreements fair representation of all constituencies waxaa jirta gobolada Soomaaliya gobol aan Soomaalida u dhamayn ma jiro gobollo iska dhaadhicay waa jiraan in qabiil ay leeyihiin laakiin ma aha reality sax ma aan ka soo qaadno Jubba gobolkan leeyahay anigu waa meesha ku dhashay qolo Soomaaliyeed oo ka maqan ma jiro waliba malihi waa lagu kala badan dadku waxa weeyaan waa distribution goboladan South West qabiil Soomaaliyeed oo aan deganayn ma jirto 4.5 aan deganayn ma jirto markii aynu u sii dhawaano guddiga hal la dhisay la yirina way soo baxda taas markastoo dawladda la dhisayna way soo baxda waxa soo baxday marka dadkii inay bilaabeen inay alliances qabiil ka baxsan ay sameeyaan anigu aan la kaftamay kuma dhalan galgudud yaan qolooyin yiri marka constituency-giisa inaan ka mid ahay hadda ka dan prime minister baa leeyahay ilaashada dadka aan kula amahay dadka qabiilkayga ah runtii wayna u dareemayeen sababtu waxa weeyaan hadda wixii ka dambeeya waxaa imaanaya territory based alliances ayaa imaanaya taas waxay yareynaysaa toonka qabiilka ayay yareynaysaa bahalladan la yiraahdo 4.5 ku dhisan yahay dad xataa aan isku lahjad ahayn Soomaalidu qodobka kala duwaneen in la yiraahdo dadkii dariska ahaan ay kala socdo oo ay tiraahdo kana waa reebel kana reebel laakiin marka aad tiraahdo South West ama Central Regions waxaad ka hadlaysaa dad daris ah dadka dariskuna waa dad Soomaali ah feature-ka ay leedahay marka xagga qabiilka waxaan anigu isleeyahay waan ka debate gareyn karaa oo waa ka sii shaqaysan karaa oo macluumaad badan maamul heritage-na waxaan ku soo dhaweyn lahaa inay arrintaas aad baxthi ugu samayso laakiin xoogaa shakiga laga qabo waxaa weeye dadkii bilaabay
ayaa muuqaal qabiil ah muujinayay iyo caadifad qabiili ah haddii aynu middaa ka dayno midda aynu ku dadaalayno ay noqoto waxaa weeyaan qabiilka waa uu yaraanaya sharcigaas waa waxyaabaha reviewga constitutionka aanu rabno in runtii la saxo waxyaaba badan baa naga khaldan xataa dastuurka meela waxaa jira iska yar horor imaanaya marka waxaa reviewga lagu sameeyey waana kumeel gaar weeye ma aha wax maartay halkii ah federalismka awoodana hoos uu soo dhigaya awooddii kor ku urursanayd waxay noqonaysaa in la distribute gareeyo oo qaabka ay wax u baranayaan dadku iyo qaabka ay caafimaadka uga shaqeynayaan iyo ay hoos u dhacdo waxay kaloo keenaysaa sense of ownership in dadku uu dareemo waxaan adiga iska leh laakiin markii wax walba dhalada keliya ay jiraan dadku wuxuu leeyahay marka waxaan aada u soo dhaweynayaa inaynu badinno dooda federalismka inaynan ka baqin oo aan prejudgment aanan samaynin oo aanan dhihin inaynu aada u badinno marka waxaa dhici karta waxyaaba aan wax si ka yihiin oon iska yar waxayn karno because federalismku ma aha wax hal nooca ma aha for example Switzerland confederalismkeedu waa ka duwan yahay kan Mareykanka waa ka duwan yahay kan Nigeria waxaanan soo wadnaa saakito waxaan la fadhiyay safiirka Switzerland waxaan dowladdu ay soo wadaa in ay models of federalism ay u soo bandhigto dadweynaha oo ay tiraahdo aan ka shoob galayno nooca annaga dhaqanka iyaga iyo nidaamka iyaga iyo anfacaya iyo waxyaabaha aan rabno midnimadanada inaynu ku ilaalino waan ilaalin karnaa midnimadana waana sii xoojin karaa inagoo taladii haddana dadka wax ka siinayna oo hoos u dhigayna oo taladan centralizedka oo kor keliya joogta wax ka dhisayna waxaan u arkaa waxyaabaha aynu u keeni karnaa xataa nabadgelyada inay waxay hal magaalo keliya inaysan dhismin inay tahay in wax walba la distribute garayo oo talada laga qayb galo waynu ka doodi karnaa laakiin baqdinta yaysan naga indhatirin waxyaabo badan jacaylka badan oo dadka qaarkood ay aada u jecel yihiin yaysan naga indhatirin iyadana waa inaynu meel dhexe isugu imaanaayo oo si fiican oo objective ah aynu uga hadalnaa citizenship based bayna noqonaysaa sababta waxaa weeye ninka marka degan qofka codka raba qof kastuu ka rabaa qabiil keliya kama rabo ugu dambeynta haddii cod ay noqoto soomaalida qabiilku waa baaba'aya sababta waxaa weeye codka qofka important yahay qabiil important maaha qofka codka bixinaya important ah qof kastoo Soomaali ahna meel ay ku qoran tahay meesha haddii ay sakeenin meeshaasna waa laga waqan karaa shuruuc talooyin aad u fiican buu soo jeediyay talooyinka kale oo dhan waa qaadanay in 4.5 laga daayo recruitmentka civil service-ka waana arrinta khamiistan aan malaynahay inaan golaha keeni doono mar hore su-aashaas la weydiiyey gacan nagu siiyay arrintaas in ay support shacbi ah hesho lianna waad garan kartaa wax dhaqan soo jiray inaa wajadnaa aabaana ayaa soo jiray laakiin midda jaamacadda haddii aan wax yarkaa idhaahdo sharci waa jiray waxay ku baysgaraysan tahay wasiirada waxaa weye sharciga jaamacadda lagu dhisay oo 71 ahaa ayaa sheegaya marka ilaa aan sharcigaas amendment ku samayno sharciga ayaa sidaa sheegaya arrinta abaarahoo kale guddigaanu waa qaybta dowladda laakiin waxaa loogu talagalay inuu ballaariyo oo dad badan runtii uu sida ka soo qaybgeliya talada laakiin waxaa weeyaan golihii markaanu shirray inaan nidhaahno hebel iyo hebel iyo hebel baa u xil saaran hawshaas iyaga ayaa laga rabaa marka inay dadka kale civil society-ga iyo dadka kale wax ku oolka iyo ganacsatada kamana maarano fariintaasna waa gaarsiinayaa guddiga oo aad bay u wanaagsan tahay muna 30 safaaradood lama xirin waxaan maraynayaa waxay ahayd go-aanka 6 safaaradood in la xiro markaas 31 safaaradood ayaa joogaysa 37 safaaradood ayay ahaayeen safaaradood weliba qunsuliyaduna ku jiraan
sababtana waxaa weeyaan awooddanada dhaqaale ayaa keeni weyday marka safiirka inta la magacaabo safiirka inuusan guri lahayn oo uusan xafiis lahayn oo uusan mushaar lahayn waa mas-uuliyad darro wey runtii ceebna waa noqon kartaa mararka qaarkood marka arrintaas darteed waxaanu iswaafajinay waxaan ahaanayaa transparent budgetka iyaga aan heli karo $6 milyan weeye wasaaradda arrimaha safaaradaha $6 milyan iyo staafkii iyo safaaradihii ayaanu iswaafajinay laakiin meelaha la xiray laftigeeda safaarad kale ayaa kabargaraynaysa oo safiir u noqonaysa for example hadda Kenya oo kale Tanzania kabargaraynaysa meelaha la xiray Burundi oo kale waxaas kabargaraynaya Kenya Sudan waxay kabargaraynaysaa Southern Sudan siyaabo noocaas marka weli hawshu way ka soconaysaa kharashku baa meeshii ka baxay marka lacag yeelanana waanu sii kordhin doonaa marka lacagtii waxaas waafajinayna iyo arrintaas Maxamed Nuur Xasan alternative sources waa jirta alternative sources aan ka fikrayno qaar ka mid ahana hawshada waa bilowna waxaa ugu horeeya canshuurta biriga oo golaha wasiirada uu ansixiyey si dekedana sourceska loo helo iyadana waxay u yarbaahatay booliiskii la oran jiray booliisiya tributario fiscal policy dhowr beri ka hor ayaa wasaaradda iyo waxaa ka wada hadlay iyo taliska booliiska ilaa 100 booliis ah ayaa la siiyey inay arrintaas kala shaqeeyaan oo bakaaraha iyo meelaha ay joogaan laakiin waa nagala shaqeyn kartaa adiga laftigaada sourceska laakiin waxyaabaha kale aan ka fikrayna waxaa weeye canshuuraha serviceska aan saaro telecommunicationka iyo xawaaladaha iyo waxyaabahaas inaan kordhino waxaa jira national capital dibadda naga jira markii Soomaaliya ay burbureysay hantidii taalay oo dhan waa la qaaday Kenya iyo waxa la geeyay iyo Dubai iyo bahalkii hanti fara badan oo Soomaalidu ay leedahay marka national capital domestic capital ma aha laakiin waa national capital dadkeena iskale marka iyadana waxaan rabnaa inaan saaro diasporada laftigeeda canshuur basaarayna laakiin contributions inaanu ka helno waa waxyaabaha aan ka fikray waxaa leeyahay soo gabagabee salaadii baa la joogaa waxaan rabay inaan ku soo gabagabeeyo dalkan inaguna sugaya dawladdu waa symbol waxaad meesha dhigateen xukuumad idinka iskale dalkan xukuumadda idinka iskale inaga wada leh supportkiina aad buu muhiim level kasto bulshada dadka aqoonta leh iyo dadka kale supportkooda aad buu muhiim waxaan soo dhaweynayaa in aan talada iyo waxqabadka wadaagno marka forum noocaan oo kale waa soo dhaweynayaa mar walba xataa access toos ah waa soo dhaweynayaa gabadhii thesis-ka qoraysay muna balan u qabo balanta ugu horeysa u baahan tahay u qabo marka waa soo dhaweynaynaa challenges aad fara badan baan haysta dhaqaaluhu waa yaryahay resource waa yaryahay aqoontii waa naga tagtay aqoontu waa yarta haddii idna wax nala qaban oo aanan wax wada qaban waxaa keliya wax ma qaban karno inaan runta sheega markii baarlamaanka aan ka hadlayo lagu magacaabo meesha arrin baan sheega waxaan u malaynayaa dad badan oo luqadda Soomaaliga ruqo wax la yiraahdaa jira oo looda iyo geelaya loo isticmaalo markii abaartu dhacdo oo uu fariisto neefka oo uu sankici karin ruqadaas qof kale keligii ma kicin karo xataa hadduu damco inuu kiciyo saynta keliya hadduu qabto waa ruqaysaa marka kelmadda ruqaba meeshaas ka timid malaynayaa leanna way go-aysaa neefkii ma kici karo marka waa in dadka beeshaas oo dhan isugu yimaadaan si tartiib ah loo kiciyaa handle with fragile waa la kiciyaa anu wuxuu leeyahay handle waa qana markii la kiciyana balance ma laha tawar ma laha murqa ma laha intii muddo ah waa in dhinacyada laga socdaayo markuu sida u liicaba
xaggaa la waxay waxaa loo wadaa meel naqle ama baad loo cuno loogu diyaariyey inta la geynayo meeshaas waa in maaragtay la wadaa markii meesha la tagana waa in afka loogu guraa si tartiib tartiib u soo qaadanaya energy oo soo waxay marka daba saa kacaya ruqadii weeye aan isla qabanno inta ruqadaas aan wadnana yaanan is'eedin bahashu mana dhiiqayso wayna fool xun tahay aad bay fool xun tahay runtii yaanan is'eedin aynu ruqadaas isla qabanno dalkeenna waa ruqo weyn laakiin waxaan qabaa haddaanu isla qabanno oo aan mid nahay oo aan isku niyad nahay ilaahayna waana caawinayaa meel fiicanna way tegaysaa markaasaan ummadda u ekaanaynaayo dhiigguna soo gelayaayo caqliguna soo gelayaayo dadnimaduna soo gelaysaa walaalayaalow adinka iyo inta kale ee ummadda soomaaliyeed ah fursadda waxaan uga faa'iidaysanayaa midnimo wadajir iscaawin isdulqaadasho istixgelin xataa haddii khaladaad ay jiraan oo annagu aan tirsanayno oo in la isu caqli celiyo laakiin aan la isgoynin macnaheeda ma aha booska igu sii haya taa ma aha laakiin inaynu dhaqan ka dhiganno patience inaynu dhaqan ka dhiganno inaynu iscaawino inaynu dhaqan ka dhiganno wadajir taasaynu waa bixi karaa haddaanan wada jirin qabiil gaar u jiri kara ma jiro haddaanan wada jirin qof gaar u jiri kara ma jiro haddaanan koox gaar u jiri karta ma jirto waana aragnay waayo aragnimada aad baad u mahadsantihiin fursaddan qaaliga oo aada siisaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo tiimkeeni heritage ee shaqada qabtay cabdirashiid iyo mahad iyo daawud iyo saciida iyo maymuun iyo sacdiya oo inta wada jooga aada u mahadsantihiin intaasaan kusoo gabagabeynana